dunida oo dhan waxa aad looga hadalhayaa gantaal ka farabaxsaday dalka Shiinaha kaas oo ku soo dhici doono dhulka balse ilaa iyo hadda aan la ogeyn goorta iyo goobta uu ku soo dhici doono warbixinta waxa aan ku eegeynaa gantaalkaas noociisa sababtii uu Shiinuhu ugu diray hawada xilliga la filayo inuu dhulka ku soo dhaco iyo gantaalo la mid ah oo dunida hore uga farabaxsaday meelihii ay ku soo dhaceen iyo khasaarihii ay dunida u geysteen sidoo kale barnaamijka waxa aan kaga jawaabi doonaa su'aasha ah ma laga yaabaa inuu Soomaaliya ku soo dhaco ma se suurooda dad Soomaaliyeed inuu waxyeello u geysto barnaamijka waxa idin soo jeedinaya anigoo Shiino Culaya waxa aad kala socotaan channelkayga YouTube iyo page-kayga Facebook waxaan ka codsanayaa inaad channelkayga subscribe saarto bartayda Facebook-na follow soo tiraahdo like-ta iyo comment-gana aad soo badiso horta ugu horeyntii Shiinuhu ilaa iyo hadda kama hadlin gantaalka ka farabaxsaday waxa ka hadlay oo si dhow ula socda oo dunida mar walba warbixin ka siinaya dalka Mareykanka hay'adda u qaabilsan hawada sare ee NASA la yiraahdo midowga Yurub iyo dalka Ruushka Shiinuhu ilaa iyo hadda waa ka aaminsan yahay hadda koornin baa waxa laga sheegay anoo aabahay la liita buu aabihii keenay Shiinuhu waagi damaswac u noqday inagoo la liidanay koronihii dalka ka soo dilaacay oo aynu ognahay hadda sida uu dunida oo dhan u silsilayo oo meel kasta uu gaaray hadda maantana wuxuu taagan yahay gantaal ba iga baxsaday waagi hore Shiinaha wixii lagu canaanayay waxa kamid ahayd xanuunka corona markuu ka dilaacay inuusan dunida si fiican uga warbixin haddii uu sida saxda ah warbixin la wadaagi lahayd waxa dhici lahayd dunidu inay xanuunka isu diyaarin lahayd laakiin warbixinihii lama wadaagin taasi waxay keentay dunidu inay sahashato oo uu ilaa uu mar dalalkii oo dhan gaaray oo dhibaatadiisa la dareemay hadda sidii si lamida gantaalka ka farabaxsaday waa ka aaminsan yahay wali kama hadlin waxaan ka baqayaa in xaalku noqdo faritog dheer bay kula xushaa oo gantaalkani uu saameyntiisa yeesho gantaalka waxa la yiraahdaa long march 5 baa la yiraahdaa Shiinuhu wuxuu hawada u diray 29kii bishii Abriil 2021 waxa uu ka diray magaalo la yiraahdo Wanjan oo uu ka diro gantaalada uu hawada u dirayo gantaalkan waxa uu xambaarsanaa saldhig uu rabo Shiinuhu inuu ka samaysto hawada sare saldhiga oo uu rabo inuu kula baratamo saldhiga kan caalamiga ah ee la yiraahdo International Space Station ee ay ku midaysan yihiin ilaa 30 dawladood inta badan dalalka midowga Yurub Mareykanka Ruushka Japan iyo Canada saldhigaas oo dunidu ay aad isaga kaashatay isla markaana loo diiday Shiinaha in lagu soo casumo si uga qayb galo marka gantaalkan waxa uu xambaarsanaa saldhig uu rabo hawada sare inuu ka samaysto qayb kamid ah khaasatan qaybtii dadka cirbixeenada ah oo uu hawada u diri doono ay ku noolaan lahaayeen gantaalka markuu hawada u diray waa lagu guuleystay gantaalkiina wuxuu hawada dhaxgeeyay hawada sare u geeyay saldhigii uu xambaarsanaa laakiin gantaalada marka la diro gantaalada hawada loo diro oo badana xambaara satellite-yada xambaara dayax-gacmeedyadu waa gantaalada maxaa ku raahdo ICBM-ka ee qaarada isaga gudba weeye gantaalka marka adduunyadu wadamada horumaray ee awoodda u leh gantaalada inay hawada u diraan marka ay gantaalka hawada geeyaan oo uu satellite-ki maxaa ku raahdaayay uu hawada geeyo gantaalka dib baa dunida loogu soo celiyaa iyadoo la maamulayo badanaana waxa lagu burburiyaa meelo maxaa ku raahdaa badda oo kale to meelo aan bin aadan ku noolayn badda oo kale oo khasaar ka imanayn baa gantaalka lagu burburiyaa iyadoo la maamulayo gantaalkani marka Shiinihii waa ka farabaxsaday taasi waxay keenaysaa marka gantaalkii lama saadaalin karo xagee ku soo dhacaya goor mu soo dhacaya kaliya waxa la hubaa gantaalkii inuu dhulka ku soo fool leeyahay oo uu dhulka ku soo dhici doono waxaana la rajaynayaa 10ka bisha May ee sanada kan gantaalku inuu soo dhacayo laakiin lama garanayo gantaalku meesha uu ku soo dhacayo hay'adaha la socda gantaalkan dhaqdhaqaaqiisa waxa ay sheegayaan inay ku adag tahay inay qiyaasaan meesha ku soo dhici doono iyo xilligu soo dhici doono laakiin ay ogaan karaan saacado yar ka hor xilliga uu hawada soo galayo hawada dhulka iyo meesha maxaa ku raahdaa ugu dhow oo uu ku soo aadan yahay gantaalkani hadda ilaa iyo hadda wuxuu ku wareegayaa dunida oo wuxuu samaynayaa
markiiba maxaa ku rahdayay 9 mar buu dunida ku wareegaya halkii maalba 9 mar buu dhulka soo wareegaya gantaalkan kii ka horeeyay oo la nooc ahaa waxa oo Shiinaha sidaas la mid ah isagu kama farabaxsan laakiin waa maamulayeen waxa uu ku soo dhacay wadanka Ivory Coast meel oo saxara baa lagu soo riday gantaalo kan la mid ah oo horay dunida uga farabaxsaday waa jireen waxa ugu muhiimsanaa oo ugu weynaa gantaalkii ka baxsaday dalka Mareykanka ee Escape Lab la oran jiray gantaalkaasi wuxuu dunida ku soo dhacay 11 bishii 7 1979 waxa uu ku soo dhacay wadanka Australia waqooyigiisa meel saxara ah cidina wax kuma noqon waxana uu u kala jajabay ilaa 100 buu u kala jajabay gantaalka xilligii uu dunida ku soo dhacayay sida kan oo kale walwal badan buu maaragtay adduunyada ku abuuray walbahaar badan aad baa loo hadalhayay xagee ku soo dhacaya falaarta ciilka loo diro nin walba filo cid walba waxa weeye walwal bay ka qabtay waxa islahayd ama adiga uu kugu habsadaa marka gantaalka Mareykanka ka farabaxsaday xilligaas Australia ku dhacay cidna wax kuma noqon sidoo kale gantaal la yiraahdo Salyut 7 baa wuxuu ka farabaxsaday midowgii Sovieti gantaalkaas isaguna waxa uu ku dhacay wadanka Argentina meel magaalo yar ku dhacay waxa uu soo dhacay 7 February 1991 gantaalkaasi marka wuxuu ku fiicnaa kii Mareykanku marka uu maxaa ku raadayay soo galay hawada dhulka ma burburin ilaa uu maxaa ku raadayay dhulka u soo dhawaaday oo waliba wuxuu kala burburay qaybo waaweyn laakiin kan Sovieti ka farabaxsaday 1991 marka uu ku dhacay Argentina markii uu hawada dhulka soo galayba markiiba waa gubtay isagoo gubtay oo waxba aysan ka nooleen buu ku soo dhacay magaalada meel u dhow isagana cidina waxba kuma noqon kan waxa jirta jariidad ka soo baxda dalka Shiinaha oo bacdama wadankaasi uu yahay wadan xirxiran oo saxaafadda laga ogolayn jariidadaas waxay ku hadashaa afka dawladda Global Times baa la dhahaa waxa ay ku waramaysaa gantaalakan inuu ka samaysan yahay aluminum oo ay adag tahay marka uu maxaa ku rahdayay heerkulka dhulka soo galaba inuu badbaado waxa ay sheegeen inay filayaan inuu markaba guban doono oo burburi doono laakiin wali dunidu cabsi bay qabtaa khubaro ka socota Oxford oo goordhowto ka hadlay jaamacadda Harvard baan wada Oxford maaha waxa ay sheegeen in jaaniska ama fursadda ah inuu adiga gantaalkaas kugu dhaco ay bilyankiiba mid tahay macnaha bilyankiiba hal mid ay tahay oo ay aad u yar tahay iyadoo dunida dadka ku nool u sheegay inay cabsida iyo walwalka badan iska daayaan gantaalkaasi aysan u badnayn inuu ku dhici doono meel dad ku nool yihiin haddii uu ku soo dhacona aysan u badnayn inuu khasaare badan geysanayo waxa u badan tahay inuu ku dhici doono meel badweyna ama dhul saxara ah oo aan cidina deganayn waa adag tahay inuu ku dhaco meel degan yahay ilaahayna ma keenaan leenahay ilaahay maxaa ku rahdayay inuu kuma soo rido baan leenahay sidoo kale waxa la filayaa gantaalkan Shiinaha ka farabaxsaday marka uu hawada soo galayo inuu guban doono cabsida marka dadku ay hadal hayaan oo adduunyada dhan hadal hayo waa wax loo qaateena xilligii gantaalka Mareykanka ka farabaxsaday ee Escape Lab la oranayay 1979 sidaas la mid ah uu dunida ku soo fool lahaa iyadoo aan la garanayn meel uu ku dhacayo waxa soo baxday cabsi ah inuu wadanka Philippines ku dhaco taasi waxay keentay dadkii Philippines-ka ahaa inay aad u walwalaan inuu maartay dad badan ay cabsadaan ilaa ay ku kaliftay madaxweynaha xilliga Philippines maamulayay inuu TV-ga soo fariisto oo dadkiisa uu u xaqiijiyo in gantaalkaasi uusan iyaga ku soo dhici doonin oo uu dadka maxaa ku u sheegay inay shaqo tagaan cabsida iska daayaan hadal haynta gantaalkaana ay iska yareeyaan sidaas la mid ah marka adduunyada oo dhan hadda waa laga hadal hayaa barihi bulshada Soomaalida oo dhan xataa hadal haysa gantaalkaasi marka inuu Soomaaliya ku dhaco Soomaaliya dunida ku taala dhulkaas loo cabsanayo oo dunida kamid ah bay ku taala laakiin hadda dunida meeshan kaga naalo waa garanaysaan dunidaas wax la qabnaa wax inaga ina ku buro ah oo ina ku gaara oo hadda maxaa ku raadayay iska jira la yiraahdaa ma jirto hal istajiyo dunidaas aynu ula midnahay dadkeenuna dadkaasi ula mid yihiin waliba inagu waxaan ku fiicanahay dhulkeenu waa dhul aad u balaaran hadiiba ay dhacdo inuu ku dhacoba ilaahay kama dhigo waa dhul aad u balaaran
dadkeenu inta badan dhulkeena ma degana dhulkeenu waa dhul maxaa ku raad dadkeena bacdama inta ugu badan ay yihiin dad reer guuraa ah oo miyku degan waa garanaysaa dhulkeenu magaalo uma badna inta la degan yahay waa in aad u yar tirada dadkeena iyo dhulkeenu haysanana waa kala badan yihiin dhulkeena badan dadkeena maxaa ku raadaay aad u tira yar marka loo eego adduunyada kaleeto dalal waxa jira meel far la saaraba aan lahaynba meeshii aad soo istaagtaba aad moodayso geed quraan saaran tahay hadda Shiinahaas ka mid ah 1 bilyan iyo 300 oo milyan oo qof ku nool Hindiya ka mid ah marka Yurub oo dhan waa buuxda inteeda badan dalal noocaas jira laakiin inagu dhul balaaran baa haysanaa tirada dadkeenuna alxamdulillah waa badan tahay laakiin dunida kale marka loo eego waynu ku yarnahay oo dhulka sida adduunyada kale loo degdegan yahay dalalna ka siilitaa inaga jira inagu ma deganin marka hadiiba ay timaado ilaahay kama dhigo inuu dalkeena ku dhaco dalkeenu wuxuu u badan yahay dhul aan la deganayn meelaha aan la deganayn oo badda leh oo bariga leh buu ilaahay idinkii ku dhici doonaa dad wax kuma noqon doonaan laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa balaayadaas Shiina soo gantay oo aysan maamulayn inuu maxaa ku rahay dhinacina ka mariyo Shiinuhu saldhiga oo hawada ka dhisanayo waxa la yiraahdaa Tianhe bal aha saldhiga wuxuu rabaa inuu kula belertamo saldhiga adduunyada dalalka horumaray ay iska kaashadeen International Space Station kaas oo uu ka duday markii lagu casumi waayay iyada oo Shiinaha iyo Ruushka iyo dalalka midowga Yurub ay uga walwalsanayeen Shiinaha hadii ku soo casumaan inuu ka faa'iideysto teknoolajiyadooda oo hadhowdii uu arrimo ciidan u isticmaalo sababtoo adduunyada kale waxay heshiis ku tahay in hawada sare aan la ciidamayn laakiin Shiinuhu heshiiska kuma jiro dhowr jeerna wuxuu tijaabiyay oo waliba uu ku guuleystay gantaalo uu ku soo ridayo dayax gacmeedo hawada haabaya taas oo dunidu aad maartay u cabaaraysay oo maxaa ku raahdaa la sheegay in khatar gelin doonto satellite-yada maxaa ku raahdaa sida raydka loo isticmaalo arrimaha isgaarsiinta saadaasha hawada maxaa ku raahdaa arrimo kale oo muhiim ah dunida u haya marka Shiinuhu barnaamijkaas buu aad uga carooday marka wixii ka dameeyay wuxuu xoojiyay barnaamijkiisa hawada sare lacag badan uu ku bixiyaa haddana guulo la taaban karana waa ka gaaray haddana maxaa ku raahdaa qaybtii ugu horeysay ee saldhigiisa Tianhe la leeyahay waa ku guuleystay inuu hawada saaro waana qaybtii cirbixiyeennada dadku cirka u diri doono ay degi doonaan inkasta oo Shiinaha dadka dhaliila khibrada dhaliisha ay ku doodayso oo leeyihiin Shiinuhu badana teknoolajiyad ma keenin oo maxaa ku raahdaa hawada sare waxba kuma soo kordhin kaliya wuxuu sameeyay shaqooyinkii ay hore u qabteen Ruushka oo midowga Soviet xilliga hore ahaan jiray iyo Mareykanka xilligii ay hawada ku tartamayeen space race ko xil oran jiray teknoolajiyadoodii buu dib u koobi gareeyay oo wax yar ka bedbedelay laakiin wax maxaa ku raahdaa horumar badan oo uu ku soo kordhiyay mare saasoo ay tahay waa dalka saddexaad ee hawada dad u diray waxa hore u diray Mareykanka iyo midowga Soviet isagu ahaa dalkii ugu horeeyay cid maxaa ku raahdaa Yuri ninkii oran jiray isagu maxaa ku raahdaa hawada sare u diray Shiinu waa dalkii saddexaad ilaa ay hadda dal afraad lama hayo waa jiraan dalal muwaadiniintooda hawada u diray laakiin dalalkaasi ama maxaa ku raahdaa barnaamijka Ruushka ba maxaa ku raahdaa ay ku baxeen ama kan Mareykanka Sacuudiga oo kale hadda boqorka haysta wiilkiisa oo kale hawadu tagay kan maaha dhaxal sugaa midu maalin xil magacaabay waaye laakiin Mareykanka qaaday dalalka kale tana saasi la mid dalal badan oo adduunka kamid ah cid hawada u diray laakiin iyagu iskood uma dirin waxa ay ku tiirsanayeen ama Ruushka ama Mareykanka Shiinu laakiin si iski ah buu isagu hawada cid u diray marka dadka Soomaaliyeed dadka dunida ku nool baalamtiin meeshan kaga naalo tiradanu ka nahayna waa garanaysaan yaan waxba la walwalin ilaahay baa inoo maqan marka ilaahay idinkii waxaan leenahay Shiinahaas gantaalka ka farabaxsaday ilaahay dhinaca hayna ka mariyo hadii ilaahay inoo ku soo wayo inoo ku soo dhacayna ilaahay biyo roob hayno ka dhigo awoodda isaga leh waa ninkii Shiina culeeyaha oo idin leh salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh